السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة قالقة ee ku xiran Galtifi oo ujeedaan maantay banaanka ayeen u soo baxay si saaxiibadeen inagu xiran ee waqti qurux badan u soo qaataan inaguna aynu ugu soo gudbino muuqaalo shidan baad maasantiin in soo raaca magaalada ay maanta inooga shidan tahay la soo bixina keena iminka waxa soo gaarnay beerta banaadir ee magaalada Muqdisho muuqaalada aan idin soo gudbin doono waa rajeynaa in dhamaantiin ka wada heli doontaan hadii Ilaahay idmo dabeeshana u jeedayna si xoog u socoto laakiin wax waliba waxa ka muhiimsan oo ka weyn codsiyadiina in anaga tixgelino oo aan idin soo gudbino wax kasta oo aad soo dalbatiin ilaa intii macquul ah maashaadkeena iyo farxadeena maalintaan aynu ku gudub jirnaa si magaalada qaybo kamid ah aan idin soo tusno waa idin balaqaanina maalin ka dambeeyso qolof qurux badan oo soo costayna idin soo sameyn doona hadii Ilaahay idmo laakiin hadda waxa la kulmay mid kamid ah halaburada Soomaaliyeed waana gabar oo soo dhaweynay idinkuna ila soo dhaweeya Fadlan soo dhaw Galtifi soo dhaw aad iyo aad baa u mahadsantahay adiga daawadayaasha Galtifi magacaygu dhameystiran waa Faadimo Cabdi Cabdulaahi waxaan rabaa galabta inaan jaaniskan kaga faa'iideysto hal maanso oo gaaban oo na qusaysa haweenka hadana ku jeeda ragga waxaana ku bilaabanaysaa sida tan gaari gabaro gurigooda joogto sama lagu barbaarsho garyaqaankii dhalay iyo gobaad hooyadeed baa guracnaan ka dhowro garasho xeel dheer baa lagu soo barbaarsho gayigeena joogtee gaban yahow guurdoonka kolley geel gamaan iyo fardakeenku oran mayo golahaagaba ma joogaan gafka ma ka dhowraysaayo gacaloy ma oran ayay sheekaysaa waa maasantaa Faadimo kaga mahadcelinayaa insha Allah waa rajeynaa in barnaamijyadeena kala soo socda Galtifi ina aan kuga casuumi doono Ilaahay